السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنسلام يا دمان أصحاب تلك نجد داونيسا ميل والبوات شوكتان يسوى البوه مقال كيجو ومركا إدين سو جار يبا حندون يا إن المقال كان عن كجا هذا وردق دقة وهذي صدعي تلابيب وحع وكدعي ووحن ولجت أنا حري الله أرك وحنا الأوران كريا وحي إيران عاو أي جيستي حسوقي وجوينا أبد أي مركزي أي جيستو wixii xalay dhacay sheeko ay noqonayaan markii loo fiiriyo waxa caawa dhacay bartamaha magaalada Tel Aviv ayaa wada holcaysa waxaana la kala garan leeyahay sidii loo guri lahaa dhaawaca iyo meydka ka dhashay duqeyntii ay geysatay dawladda Iran arintaas oo degdeg ah ayaan doonayaa bal muuqaalkan bal inaynu ku fiirino sidee wax u dhaceen weerarkaas ay soo qaaday Iran beeqa gantaal ayuu ahaa iyo war ka soo baxay weerarkaas oo isla Iran ay markaas si shaacisana bal waynu fiirin doonaa marka bal soo dhawaada meel walba aad joogtaan isoo walba muuqaalkaygu marka idin soo gaarayaba hadii aad ku cusubtiin channelka aminana horay subscribe u dhihinin fadlan subscribe saarta si aad ula socotaan xaadaha ugu dambeeya ee ku saabsan bariga dhexe Soomaaliya iyo arrimaha kale bulshada oo aynu halkan ku soo gudbino maalin walba iyo xilli walba aad ayaad u mahadsantihiin hadii aynu bilowno caaway waxaa dhacay laba weerar oo kala duwan fiidnimadii hore waqtiga bariga dhexe ay Iran waxay weerartay magaalada Haifa la yiraahdo laakiin waxaynu bal ku hormarinaa bal dhankaas iyo Tel Aviv markii ay Tel Aviv ka ahayd xilliga 4tii subaxnimo ama 4tii habeenimo ama 4 am hadba sidaad u taqaano ay Iran weerar culus ay ku qaaday magaalada Tel Aviv ama Central Israel oo dhan ayay ku qaaday waxaana la xaqiijiyay in weerarkaasi uu ka koobnaa ugu yaraan ilaa iyo 50 gantaal oo noocooda aanan markaasi horay aanan u arag markii aan fiirino sida ay u gudbayaan iyo sida ay u socdaan iyo dhulka markay ku dhacaanba holca ka baxaya ayaa wuxuu muujinayaa inay gantaaladan ay yihiin gantaalo nagu cusub oo ka duwan kuwii xalay iyo habeen hore ay markaasi ay Iran isticmaalaysay gantaaladaasi inta la xaqiijiyay ugu yaraan ilaa iyo 20 gantaal ayaa si toos ah ugu dhacay gudaha bartamaha Israel ama aagaga ku hareeraysan magaalada Tel Aviv la yiraahdo waana duqeyntii ugu weynaydba abid ee markaasi gudaha Tel Aviv ay la kulanto inta aan ka warqabno haddaba maxaa isbedelay caawa maxaa keenay in gantaaladan ay wada gudbaan ayaa bal xoogaa analysis ah aynu ka sameeynaa waxaan isleeyahay laba waxyaalood midkood ayaa dhacay ama xog kale oo aynu haynin ayaa jirta oo dib ka imaan doonta aragtideeda shakhsiga ah iyo analysiskayga iyo qaaska ah markii aan fiiriyay caawa waxa dhacay laba midkood inay dhaceen ayaan aaminsanahay marka ugu horeysa waxa macquul ah in difaaci cirka ee Israel uu markaasi daciifay ama uu halaabay ama uu daalay sidii la rabo loo dhigay oo difaacaasi ay arrin ku timaaday kadibna uu awoodi waayay inuu celiyo gantaaladii ay caawa Iran ay soo riday taasina ay keentay marka in gantaalo ugu yaraan ilaa iyo 20 ah ay si toos ah ugu dhacaan gudaha bartamaha magaalada Tel Aviv la yiraahdo meeshan Tel Aviv ah iyo aaga ku hareeraysan sidaan dhowr mar hore idin sheegay waa halka ugu dadka badan Israel waa meel aad u population badan weey marka inay meesha population ka badan ay ugu yaraan ilaa 20 gantaal ay inta gudbaan ku dhacaan waxa la oran karayaa marka defensive system ki Israel ama Iron Dome ki ha noqdo ama ki kala ha noqdo saddex nooc oo kala duwan bay haystaan ilaa inay ku yimaadeen ba suurtagal sababtaasna ay keentay inay gudbaan qodobka labaad waan isleeyahay wixii caawa dhacay way sababeen waa in Iran ay markii hore beegsatay qalabka difaaca cirka Israel markii ay burburisay ama ay fashilisay ka bacdina ay weerarkan ay markaasi ay sameysay casharkaas in marka hore difaaca cirka la qalqaliyo ama la weeraro ama la damiyo ama la haleeyo ayaga laga bartay markii la fiiriyo weerarkii ugu horeeyay ee dagaalkan socda uu ka kacay
oo Israel markaasi ay ku bartilmaameedsatay xarumaha nuclearka ee Iran isla markaasna saraakiil badan oo Iiraaniyaan ah markaasi lagu laayay marka in markii hore inta la damiyay ama la haleeyay kadibna marka la weerar waa suurtagal ama waa qodobkii hore ah in ay maxaa la yiraahdaa daaleen ama halaabeen maadaama ay muddo badan shaqeynayeen wuxuu waa bir ay kulaan kartaa way halaabi kartaa waxyaalaha noocaas inay jiraan oo cilada kadibna marka Iran ay ka faa'iideysatay oo ay shug ku siisay labadaas qodob midkood ayaan aaminsanahay in wixii caawa dhacay ay markaasi ay sababeen bal aynu fiirino wax yar warkii hadda ka soo baxay dawladda Iran oo markaasi ay bal ku sharaxaysay wixii markaasi dhacay kadib baynu haddana fiirin doonaa bal wixii dhacay iyo meelihii qasaaraha ugu badnaa oo markaasi uu ka dhashay weerarkii caaway lagu qaaday magaalada Tel Aviv iyo Haifa sida aad ka arkaystaan statementka hadda soo baxay ciidamada cirka ee Iran ayaa qaaday baa la yiri weerar gantaalo cusub oo taxana ah oo markaasi ah balantii saddexaad oo ay qaaday dawladda Iran oo ay ku bartilmaameedsanayeen baa la yiri taliska iyo nidaamyada xakamaynta cadawga markaysa waxay sheegeen inay markaasi bartilmaameedsadeen taliska iyo nidaamka bay yiraahdeen waxa marka meesha ka muuqata inay marka hore Iran ay bartilmaameedsadeen meelihii qalabka difaaca cirka oo markaasi uu yaalay waxay kaloo intaasi ay ku dareen iyo goobo kale oo military oo xasaasi ah ayaan bartilmaameedsanay oo markaasi aan burburnay ay yiraahdeen waxay yiraahdeen weerarkaani wuxuu ahaa mid ka xoogan kana burbur badan baa la yiri sidii hore waxaana aanu isticmaalnay bay yiraahdeen Iran habab cusub oo sirdoon iyo qalab aad u horumarsan ayay yiraahdeen meeshaasina waxa ku jirta ayadana xog kale oo muhiim ah waxay yiraahdeen Iran oo qoraalkeeda markaasi sii socda weeraradaanu way sii socon doonaan wayna sii xogeysan doonaan ilaa iyo inta ay sii socoto gardarrada ay Israel ay markaasi ay wado haddaba hadalka Iran maxay inooga soo baxay saddex arrimood baa inooga soo baxaya marka ugu horeysa waxay Iran sheegtay caawa inay markaasi ay isticmaashay gantaalo cusub ayaynu isticmaalnay bay yiraahdeen wasabtan u lahaa gantaaladii hore waana ka holac badan yihiin waana ka isbiid badan yihiin waana dhaafayaan ba difaaca cirka ee Israel marka midaas oo midda ugu horeysa ee nooga soo baxday wixii caawa dhacay markii la fiiriyo sheegashada Iran qodobka labaadna waxa ka soo baxaya in Iran markaasi ay sheegtay inuu weerarku ahaa weerar ka xoog badan iyo ka qasaaro badan kana burbur badan weeraradii hore ayadana waa midii aynu sheegnay in magaalada si u burburtay oo aan qaybta dambe muuqaalka aan idinku tusi doono si aan waligeed aysan markaasi aysan hore ugu burburinin iyo finally inay markaasi bartilmaameedsadeen goobo xasaasi ah saddexdaas qodob ayaynu marka ka fahmi karnaa warkii ka soo baxay dawladda Iran ee ku saabsanaa weerarkii caawa dhacay laba dhacdo ayaan doonayaa marka inaan bal ku soo koobo muuqaalkan oo aan idinku sheego waxyaalihii la yaabka lahaa ee caawa aynu aragnay isla markaasna argagaxa lahaa waxa jira guri dhan oo complex ama apartments minda ilaa iyo 100 wax la mid ah apartments ama flats ka kooban oo markaasi uu gantaal si toos inta ugu xarooday asagoo dhan inta dhulka la dhigay ay magaaladii oo dhan isugu soo baxday oo la kala daad gurayn la yahay dadkii meeshaasi ku burburay ama ku dhintay waa guri dhan ayaa wuxuu noqday dhulka ayuu galay maanan arag gantaal noocaaya gantaaladii hore guryaha daaqadaha iyo meelahaas ka burburinayeen laakiin guri dhan oo complex ahayo dhulka la geliyay waxa la wixii ku jirana ay ku baaba'een waa dhacdo runtii inagu cusub oo aad iyo aad markaasi argagax u lahayd waxyaalaha kale oo aan arkayno aad ka ula yaabay waxay tahay qolooyinka dabdamisku uma baahana inay nalal daartaan oo waxa nalba u ah magaaladii oo dhan baa holcaysa marka nalkaas holcaya ayaa wuxuu u yahay maxaa la yiraahdaa nal hadii ay gurigan daminayaan gurigan kale dabkiisa ayaa kaas kale ifinaya oo marka ay daminayaan ay markaas isticmaalayaan dhulkii oo dhan wuxuu noqday iftiin iyo wada guduud iyo wada holac buu noqdaa maadaama ay magaalada oo dhan ay markaasi ay holcayso taas marka waa dhanka Tel Aviv dhanka Haifa markii la fiiriyo
oo fiidkii xalay ay weerartay dowladda Iran asaguna khasaare kale oo xoog leh ayaa ka dhashay laakiin meesha ugu muhiimsan oo ay taageed gareeyeen Iran oo ku saabsan magaalada Haifa waa inay dumiyeen oo ay gubeenba xaruntii korontada ee magaalada oo dhan ay gubeen naftirkeedii baa dabdamis u baahatay magaaladii oo dhanna waxay noqotay magaalo aan koronto haysanin marka waxaad arkaysaa sida dagaalku u yahay mid la iska bartilmaameedsanayo ilaha dhaqaalaha ah iyo meelaha muhiimka ah inta ay muuqaalkan ku soo koobaya inta dib isaga soo laaban waxaan ka tagaysaa nabadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh